Sidee ku ilaawi kartaa qof aad horay u jeclayd? Way adag tahay inaan ilowno dad aanu jeclayn kana tagay nolosheena. Waxaynu isku daynaa inaynu ilowno, balse dadka qaar ayaa aaminsan inay adag tahay inaad ilowdid qof horay aad u jeclayd ama aadan ilaawi karin. Dad baa ku dhahaya jacaylka ma ilaawi karo, mana baaba'o. Laakiin intaasi jawaabtu way ka duwan tahay. Xaqiiqda ayaa ah inaynu ilaawi karno qofka aynu jeclayn. Sababtoo ah jacaylka iyo nacaybka, xanuunka, jirrada, intaba waxaa laga xukumaa maskaxda. Waynu kontarooli karnaa jacaylka iyo nacaybka intaba. Waxaa haddaba kuu soo gudbinayaa ilaa 3 qaab oo ku ilaawi kartid qof horay aad u jeclayd noloshaadana ka baxay. Lambarka 1, markii aad xasuusatid qofkaas aadna tahay qof cidla ah, inaad ka tagtid cidlada dhex gashid bulshada. Markaynu ku jirno qol kaliya ayaynu ka fikiraynaa, maskaxdeena waxyaabo badan ayaa kusoo dhacaya. Waxaana sahlanaanaysa in qofkaasi uu noo sawirmo aan ilaaweyno, balse isku day inaad dhex gasho mar walba bulshada aadan ahaanin qof kaliya. Lambarka 2, inaad mar waliba ka taxadartid, ilaalisid qalbigaaga inuu ku fikiro waxyaabo kale. Inaad dhowrtid qalbigaaga, in aad tusin niyadaada inuu ku soo gaaray wax dhaawac ah. Ka soo qaad qofkaasi inaad ku tahay qof aan weligiis arkin, in aadan weligaa garanayn, markii xitaa aad dadka ku dhex jirtid, markii uu kugu soo dhaco qofkaas, waxaad tiraahdaa may, noloshayda kumaba jirtid adiga. Waxaa sahlanaanaysa inaad ilowdid qofkaas. Qaabka 3 aynu ku ilowno dadka aynu jecelnahay ayaa ah in aanu samaysano nolol kale, waxyaabo kale. Markii aad ka fikiraysid jacayl, waxyaabo kale, oo markaa hankaaga uu ka hooseeyo halkii loo baahnaa. Haddii uu jiro hami ku guba, rajo ku gubta, inaad tahay isku aragtid inaad tahay qof muhiim ah, tahay mustaqbalkii beri, tahay hogaamiyihii ummadda beri. Waxaa sahlanaanaysa inaad iska ilowdid waxyaabaha maalayacniga. Markaan hadalkan dhahayo micnaheeda maahan inuu yahay jacaylka maalayacni, balse dadka ka baxay noloshaada ee aad u baahan tahay inaad ilowdid ayaad ku ilaawi kartaa 3dan qaab. Fadlan waxaad xoogga saartaa in aad mar waliba ahaan keli ee aad ku jirtid bulshada si aad u ilowdid qofkaas si fudud. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. Fadlan channel-ka haddaad ku cusub tahay subscribe ha ka ilaawin. Sidoo kale share garee asxaabtaada la wadaag, waxaa laga yaabaa in uu anfaco muuqaalka. Like na saar muuqaalka, wuxuu noo yahay dhiirigelin. Waad ku mahadsantahay.